caqabadaha ay u keeni karto burukiitada waxaa ka mid ah in sanbabkaagi uu shaqey waayo. sanbabku markuu shaqey waayona qofka uu isticmaalo kaliya in machine uu ku neefsado, mashiinkaas ventilator loo yaqaan kaliya uu ku neefsado. Assalaamu calaykum waa walaalkiin Torxadle. maantana waxaan ka hadli doonaa burukiito ama pneumonia, taasoo ah caabuqa ku dhaca sanbabka. sanbabka sida ognahay waa hafdhiska neefsiga, taasoo dadka ay markii ay neefsanayaan ku neefsadaan wax wasaqdan ka soo saaraan oo ka soo saar qofka markuu neefsanayo oxygen ayuu qaataa, markii uu soo celinayo neeftan waxaa la soo saaraa wax la dhaho carbon dioxide. waxaa ku shaqo la systemkaas oo respiratory system ama hab-dhiska neefsiga, khaasatan alveolar. marka waxaa dhacayso in caabuq uu ku dhaco systemkan, kadib wuxuu dareemayaa qofka xanuun daran, waana lagu kala duwan yahay. khaasatan waxaa ugu daran caruurta iyo dadka waaweyn oo ka weyn 65 sano ama cudurrada waqtiga dheer lala noolaada qaba. haddaba maxaa keena? waxaa keena infection ayaa keena, ama caabuqan waxaa keena infectionka ugu badan oo keena waa bacteria iyo virus, inkastoo ay jeermisyo kale oo fara badan ay keenaan. bacteria ugu badan oo keenta waxaa loo yaqaan streptococcus pneumonia, chlamydia iyo legionella. haddaba maxay yihiin calaamadaha lagu arkayo qofka qaba burukiitada? calaamadaha lagu arko waxaa kamid ah qandho aad ah, ama inay qofkii temperaturekiisa ama heerkulkiisa aad u noqdo, inuu qufaco qofka, qufacaas oo ay soo raacayso candhuuf ama xaaqo jaallo ah ama cagaar ah. in qofkii uu dareemo neefta inay ku dhageyso, inuu qofkii xaqa uu dareemo xabadka inuu xanuunayo, in qofkii uu matago, inuu qofkii cuntada cuni waayo. haddaba sidee loo daaweeyaa? waxaa loo daaweeyaa qofka markuu calaamadahan waxaan isku arko dhakhtar booqdo, waa la baaraa. markii la baaro oo la dhageysto sanbabkiisa lana wareysto, waxaa loo qoraa daawooyinkaasoo laba mid, ama inuu ku qaato isbitaalka haddii uu aad u daran yahay, hadduu roon yahay gurigiisa la aadaa. qofka 2 isbuuc ilaa 4 isbuuc oo kasoo reysanaya. haddaba qofkii inta ku dhaco burukiito waqti dheer ay hayso, maxaa caqabado ka dhalan kara? caqabadaha ay u keeni karto burukiitada waxaa ka mid ah in sanbabkaagi uu shaqey waayo. sanbabku markuu shaqey waayona qofka uu isticmaalo kaliya in machine uu ku neefsado, mashiinkaas ventilator loo yaqaan kaliya uu ku neefsado. 2 in qofkii sanbabkiisa ay galaan biyo, ama in sanbabkiisa ay ka buuxsanto wax loo yaqaano malax ama lung abscess, ama qofkii in bacteria ay tagto dhiiggiisa, bacteremia, taasoo hadhow keeni karto mararka qaar meningitis iyo inuu qofkii u geeriyoodo, ama dhibaatooyin kale oo caafimaad ay u keeni karto maadaama dhiigga ay bacteria tagtay. haddaba haddii calaamadahan khatarta isku aragto ama waqti dheer waxaan isku arkayso, waxaa habboon in aad dhakhtarka aado. waxyaabaha inaad si gaara loo fiiriyo ay tahay qofka uu si degdega ama emergency ahaan ku aado ay tahay dhakhtarka. haddii qofka uu qandho aada ay hayso, oona qufacayo muddo 2 isbuuc ka badan, oona isku arko markuu qufacayo ama neefsanayo inay xabadka uu xanuuno, ama uu dhiigga uu soo raaco qufaciisa ama xaaqadiisa, waxaa habboon inuu si degdeg ah ku gaaro isbitaalka si loo baaro. haddii ay tahay burukiito ama pneumonia looga daaweeyo. waxaan rajeynayaa inay ka faa'iideen. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.